qaybtii koowaad ee taxanaha basaasiinta soomaalida waxaan kaga hadalnay basaaskii carabay oo ay xiriir la sameeyeen sirdoonka soomaalida si uu uga mid noqdo iyaga. markaas kadibna wuxuu bilaabay hawshii loo xilsaaray. qaybtan oo ah qaybtii labaad uu kaga hadlayaa carabay arrimo kale. qoraalkan oo aan ka soo qaadanay xusuus qorka carabay waxa uu qaybtan ku bilaabayaa. waxay ahayd habeen ay guriga safiirka ruushka ka dhacaysay xaflad gaaban oo ay kasoo qayb galeen safaarada shisheeye iyo madax soomaali ah. waxaana munaasabadda oo istaag ahayd ay dadku u taagnaayeen 2-2 iyo 3-3 iyadoo ay ka dhacaysay sheeko gaagaaban iyo faq hoose oo aan la ogaan karin waxa uu ahaa. waxaa la isku gaaray muddo ilaa saqdi dhexe. dadkii la casuumay intooda badanna way baxeen, haseyee waxaa soo haray dad yar oo soomaali badan. sida uu sheegaya carabay, iyagoo aqoon badan uma lahayn dadka soomaalida qaarkood ee xafladda ku haray. waxaana loo sheegay markii xiriirka lala sameynayay iyaga ahaan in soomaalida inta badan safaaradda soo gasha ama safiirka xiriirka kala leh ay lahaayeen kuwo xiriir hoosaad uu kala dhexeeyo ruushka, islamarkaana baalmarsan mabda'a kacaanka, waxayna habeenkaas ku hayeen il gaara. carabay wuxuu in yar u soo baxay dibadda guriga, wuxuuna la kulmay dad badan oo eeg dad caadi ah oo waardiyaasha kale ka codsanaya inay u ogolaadaan inay xafladda gudaha u galaan si ay xoogaa cuntooyin iyo cabitaano uga helaan, sida mararka qaar ay samayn jireen inay gudaha usii daayaan soomaali tiro yar oo markaa aan ku dhowaan jirin goobta xafladda, laakiin meel gaara ay cabitaano iyo waxyaabo yaryar u keeni jireen. sidii ayuu dib ugu laabtay gudaha isagoo xoogaa yaro shakisan, ogse in hawshii wax ka socdaan, hase yeeshee cidna kalamuusan xiriirin wixii uu rumaysnaa oo ahaa in kooxihii sirdoonka ay yihiin waxaa albaabka guriga safiirka hortiisa taagan, wax kastoo ay isu ekeysiyaanba. habeenkaas ka hor qiyaasta muddo laga joogo 2 bilood waxaa xilli dambe guriga safiirka ka baxay nin aada loo yaqaanay oo xubin sare ka ahaa hogaankii xisbigii hantiwadaaga, oo imaatinkiisa iyo la kulankiisa safiirka uu muddo badan soo noqnoqonayay. waxayna xusuustaan carabay iyo raggii kale ee la shaqaynayay iyadoo ninkaas mas-uulka ahaa loo galay hareeraha ganjeelka albaabka guriga safiirka. markii uu dabadda u baxayna durbadiiba ay hareereeyeen rag dharcad ah oo markii dambe kaxaystay. carabay ninkaas magaciisa uu ka gaabsaday, wuxuuse sheegay in xilliga qabashadiisa ka hor lala soo xiriiray oo la weydiiyey inay la socdaan dhaqdhaqaaqa hareeraha guriga iyo qofka mas-uulka ah ee gudaha ku jira. aada ayuu habeenkaas feejignaan u galay, mararka qaarna isagoo alaabooyin sidaa ayuu ka ag dhowaanayay kulanka safiirka ee ninkan mas-uulka ahaa si uu xaqiijiyo marka hore. laakiin inta badan waxaa ka sokeeyey kulanka oo uu gaari waayey shaqaale ruush ah oo inta badan waxyaabaha uu waday kasii qaadayay, iyagoo markaa ka fogeynayay inuu ku dhowaado kulanka meesha ka socday. kulanka wuxuu ku beegnaa xilligii ay socotay qabanqaabada halgankii soomaali galbeed oo si aada loo hadal hayay, waxayna warbaahinta soomaalida xilligaas ku mashquulsanayd barnaamijyo iyo heeso kicin u muuqday oo ku saabsanaa soomaali galbeed. badanna waxay qaadanayeen tababaro si ay u xoojiyaan halganka jabhadda, mase jirin weli tallaabooyin buuxa oo lagu bilaabayo xoreynta dhulka soomaalida ee markaas la abaabulayay. guux badan ayaa ka jiray gudaha dowladda, waxaana la tuhunsanaa in madax ka tirsan dowladda aanay raalli ka ahayn go-aanka ay dowladdu ku doonaysay in ay ku taageerto jabhaddii soomaali galbeed. marka laga reebo dadkaas laga shagsana ee guriga imaan jiray, waxaa jiray nin darawal ah oo carabay bargaranayay oo guriga iman jiray, uuna yaqaanay inuu ahaa darawal u shaqaynayay safaaradda Itoobiya oo in badan safiirka Itoobiya ninkaasi uu ahaa nin darawal u ahaa oo carabay iyo ragga la shaqaynayay ay
intooda badan yaqaaneen, laakiin sirdoonku ay aada u muujinayeen inay rabaan inay macluumaad badan kasii helaan ninkaas iyo waxa uu yahay. ninkaas darawalka ah wuxuu deganaa degmada cabdulcasiis, wuxuuna ahaa nin dhexaad muuqaal ahaan qurxoon aan balwad lahayn oo kaftan badan. inta badanna goobaha ay ku jirto liido ayuu tegi jiray xilliga faraaqada uu shaqada ka yahay. dad badanna ma haysan inuu yahay nin etoobiyaan ah, laakiin waxaa la rumaysan yahay in ninkaas in badan uu ku dhex milnaa bulshada soomaalida. wuxuu lahaa caruur soomaaliyeed, xaas soomaali ahna wuu qabay. afka soomaaliga aada buu u yaqaanay, xigmadaha iyo mahmaayada soomaalidana lagama aqoon inuu yahay nin soomaali ah. wuxuuna mararka qaar deegaanada soomaalida sheegi jiray in qaarkood ay ahaayeen meelaha uu ka soo jeeday. daawadayaal, qaybta saddexaad iyo taxanaha basaasinta soomaalida ayaanu idiin soo gudbin doonaa insha Allah. نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل